السلام عليكم walaal. عليكم السلام ورحمة. walaal fadlan magacaaga iyo meesha ku nooshahay noo sheeg. magacaygu waa Cali Faatix, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi xaafadda Islii. Hay walaal waa mahadsantahay. Channel-ka la dhaho yoolka rajada weligaa ma aragtay mise ma taqaan aqoon u leedahay? channel-ka waan arkay niman dhalinyaro ah oo aad u khibrad badan baan ka dhageystaa, marka waxaa la dhihi karaaba inaan ku xiranahay. Okay, marka su'aalo yar baan jeclahay inaan ku weydiiyo. gabdhaha hadda soo koraayo mise haweenka haddii lagu ilaa waana fiican si mise la wadaag maxaa dhihi lahayd markaas hal waano ku qancayso? gabdhaha iyo haweenka waa kala labo. haddii la yidhaahdo haweenka, waxaan kula talin lahaa rabbigiin ka cabsada, raggiinan adeeca. hadday noqoto gabdhaha, waxaan kula talin lahaa rabbigiin ka cabsada, xishoodkana ku dadaala, xaafadiinana ku sugnaada. marka shukaansiga guurka ka hor maxaa ka qabtaa? shukaansiga guurka ka hor waan soo dhaweynayaa, laakiin kan hadda socda totally waa la khaldan yahay. oo sabab? shukaansiga guurka ka hor waxaa naqaanay oo diinta islaamkana soo guurisay dadku inay isbartaan, qofkan iska fiiriyo si aan hadhow aan loo kala boodin, wixii intaa ka dambeeyana hawlihii la isugu talagalay iyo guurkii la galo. laakiin hadda shukaansiga socda waxa weeyahay 5 sano 3 sano 2 sano oo maalaa yacniya oo hadhowna laguba kala tagahayo, ood maqli qof ooyo la jacayl baa beerkii kala gooyo, qof baa iga baxay. inta badanna suu ku dhisan yahay wax daacad ah waa iska yaryahay. dhammaan dana khaasaa la isula socda, qof walba markuu qofkan ku moodo waa ka tegaya. marka totally shukaansiga hadda jira laba qowl kuma jirto, khalad waa khaldan yahay ilaa man raxima rabbi. hay marka maxaa is leedahay shukaansiga hadda jiro haddii la fiiriyo iyo guushiisa inuu markaas guur camal laga noqdo mise reer laga yeeshto badanaa ma dhacda? miyuu guuleystaa mise badanaa ma guuleysto ka hadda jiro? shukaansiga hadda jira wuu guuleystaa wax ka mid ah, oo dee dadka intaa dhan ee wada socda isku soo bood ma wada aha, oo dee wax guuleysta waa jiraan. laakiin 80% boqolkiiba 80 haddayna ka badnayn u fashilmaa, guuldaro ku dhamaada. haddii maanta oo $1 milyan lagu siin lahaa maxaa ku qaban lahayd? halka gubaya ku qabsan lahayd? maad isiisaanba markaasaan fiirin lahaa waxaan ku qaban lahaa. horta $1 milyan waa lacag. waxa ugu horeeya ee aan ku samayn lahaa waxaa weeyahay anigoon haynin rabbigii isoo geliyaan ku raaligelin lahaa. wixii markaa lagu leeyahay oo xaqan ka bixin lahaa, waa ka soo xajin lahaa. markaan nafiso wixii intaa ka dambeeya dee waa ku xamaalan lahaa, maxaa kula samayn lahaa. dadkeena Soomaalida maxaa caan ku nahay, maxaa lagu yaqaanaa? dadka Soomaalidu haddii xagga xumaanta la dhaho qabyaaladday caan ku yihiin, haddii xagga wanaagga la dhahana qur-aankay caan ku yihiin. marka labada jaaniba way leeyihiin. hay dhaqanka markaas oo dadkeena Soomaalida adiga aad ka jeceshahay maxaa waay ka soo jiita? dadka Soomaaliyeed dhaqankayga aan aad ooga helo, inta badanna aad isdhahayso ma carabtaa laga soo minguuriyey, waxa weeyaan qofkan markuu aad soo magan gasho qabiilka maanta isdagaashan tihiin sida baadiyaha laga yaqaano ee islaynaysaan, haddaad soo magan gasho marti u soo noqoto oo tiraahdo niyo adigaan caawa marti ku ah, Soomaalidu martideeda ma layso, way ka sariigtaan. waxaa kaloo aad ugu fiican yihiin, waxay ixtiraamaan oo madaxa u saaran gabdhahooda. inta badanna gabdhaha Soomaaliyeed haddii wax yar la yeelo rag waa wada diiraan. marka labadaa dhaqan oo Soomaalidu leedahay waxaan leeyahay ilaahay u yeelay baa ku mahadsan. maasha Allah. dhaqan iyo markaas leeyihiin aadan jeclaanin oo is dhihi lahayd dhaqankaas ha laga saaro mise oo yara xun dhaqankee waay? dhaqanka Soomaalida aan u karaahsaday waa qabyaaladii oo indhala-aana oo ay si xun u fahmeen ayaan u karaahsaday. marka dhaqankaas
waxaan rajeynayaa maalin maalmaha ka mid ah inuu ilaahay naga zuulin doono. xirfad aad leedahay oo noo sheegi karta ma jirtaa? niyow xirfaduhu dee waa iska fara badan yihiin oo dee markii adduunka la joogo markuu albaabkaa xirmo mid baa la iska furtaa. marka xirfadahan leeyahay waxaa ka mid ah sida waxbarista oo kale. waxbarista oo kale xirfad bay ii tahay. waxaa xirfad ii ah hadalka, dee waa hadli karaa marka haddaan intaas u ammaano, marka inahaas ma ka sheegi karaa. xirfadda markaas jeclaan lahayd inaa aqaan lahayd waqti hore mise adoo yar mise fursad oo markaas aa ka faa'iidaysan lahayd ha noqoto xirfad ahaan maxay ahaan lahayd? horta markii adduunka la joogo culimadu waxay yidhaahdaan adduunka waxaa loo noolaadaa sidaad awoodo, yani kayfa tastatic. laakiin aakhare markaad joogto waxaa loo noolaadaa sidaad doonto. markaad jannada gasho saa doontaa loo noolaadaa. marka haddii ay dhici lahayd inaan awoodo, waxaa jirtaa xirfado aan takhasus ku yeelan lahaa oo ay ka mid tahay xagga qaadinimada. in badan aad u jeclaan jiray laakiin ay saamiix weyday inaan qaadin noqdo oon dhinacaas takhasus weyn u yeesho. laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah maalin maalmaha ka mid inay suurtagali doonto. ilaaha ku fududeeyo. dhalinyarada maxaa ku waanin lahayd maanta xirfadaha bartaan haddii markaas qof yar ku imaado dhalinyaro ah ku dhaho xirfadee maanta igula talin lahayd mise igu waanin lahayd inaad barto maxay noqon lahayd? waxaan kula talin lahaa horta rag noqda, rijaal noqda. ninkuna wuxuu rijaal noqdaa, rajul la dhihi karaa ninkani waa markuusan diintiisa martida ka ahayn. marka haddaad lacag rabtaan oo adduunyada raaxa ka rabtaan wax barta. waa dardaaranka nabi maxamed, man araada addunya facalayhi bilcilm waman araada alaakhira facalayhi bilcilm. haddaa adduunya rabtaanna wax barta nimayo, haddaa aakhira rabtaanna wax barta. xirfaddaa doonta baro, laakiin haddaad rabto inaad si nin raga u noolaato oodan meelaha shaxaad iyo aad qaaqlanimo la taagnaanin wax baro. waa intaas dardaarankaa siinayo. barasho. maanta haddii ahaan lahayd madaxweynaha Soomaaliya maxaa qaban lahayd, maxaa kusoo kordhin lahayd, maxaa ka jari lahayd, maxaa ku darsan lahayd, maxaa u subin lahayd, maxaa u qaban lahayd ayaga? haddaan maanta madaxweynaha Soomaaliya noqon lahaa dimaba ihiye oo mana socdee, laakiin lacala hadday dhici lahayd inaan noqdo, midda koowaad waa inaan kitaabka ilaahay ku xukumo. midda labaadna miisaanka ilaahay uu soo dejiyo cadaaladda ah inaan waddanka ku xukumo. haddii cadaaladdaa la helo waxaan gaaraynaa waqtiga Cumar bin Khataab oo kale, qof walba asagoo gurigiisa jooga inuu mushaar qaato, qof miskiinana aan laga helin ummadda dhexdeeda. waxa faqriga keenay waa cadaalad xumada. marka halka arrinay sameyn lahaa waxa weeye inaan ummadda kitaab ku xukumo, cadaaladiina ilaa cadaalad kitaabka amraye in ummadda lagu kala maamulo si faqriga iyo gaajada looga bixiyo macluusha waddanka tahay. laba shay waa kitaabka iyo cadaaladda. maasha Allah. haye channelada Soomaalida oo YouTube-ka ka shidan channelkee taageero ka tahay mise daba socotaa mise raacdaa mise daawataa u badantay? niyo horta macallina waana, ardayna waana, odayna waana. horta marka inta badan ima suurtoodaba ama waqtiba ooma helo inaan YouTube ka daawado. laakiin markaan soo galo laba YouTube maan daawadaa, laba channel oo yoolka rajada oo dhalinyaro aan aad u jeclahay ay joogaan waan daawadaa. waxaa kaloo daawadaa ogaansho in la yiraahdo oo aan wax badan ka fahmo. xaqiiqda lama xaqiro qofka, wax badan aan ka fahmo. labadaas channel ayaan inta badan ka daawadaa. laakiin dee waxa kale soo haray dee baraanka iyo gabar mara lagu tuur iyo waxaana dee wax ka daawada ma walaal. ku maadsantay. mid ugu dambaysa maxaa waaye Soomaalida sidii loo kala qayb waayahan oo ah Soomaalidii oo waddankeena ku nool weli iyo kuwa sujuuda la dhaho hadda East Africa mise Kenya u badan iyo kuwa diaspora-ga u badan, farqiga ma noo kala bixin kartaa adi ahaan u fiirsid? horta dadkan waa dad isu dhaqana, hal dhaqanna leh, Soomaalina la isu yiraahdo caalamka. laakiin
waxaa jira markaad hoos u fiiriso wax yar oo kala duwan yihiin Soomaalida Soomaaliya ka imaata ama Ethiopia ka imaata oo isu dhaqan inta badan waa dad adag wey waxna qabsada ana wax loo dusin karin oo la siri karin waa dad inta badan waxoodu cad yahay waxoo cadaysan kara Soomaalida Kenya waa niman yaqaan si u noolaadaan yani nin walba intiisa soo ceshado inta badan isuma gudbaan iskama warhayaan nin walba intiisa u oodan meeshuu ka kala ka soo booqdo waa meel uu ku dhintay marka xogaa dhaqankaas way leeyihiin xumaana kama ahe waa waxay abka soo gaar hooyada ku barteen laakiin Soomaalida dibadda jirta ama diaspora loo yaqaano waa kala labo kuwa say wallahi baa loo yaqaanaa oo kuwa yar yara kuwa ayagu dhaqanka Soomaalida waxa kama yaqaanaan in la baray u baahan yihiin wax lagaga tilmaamana ma leh meeshay joogaan bay ku dhaqan yihiin kuwana de waa dadka ayaga dhalay meeshan ka tagay ee xagga galay dadkaas mid walba wuxuu ku dhaqan yahay meeshu ka imaaday waaw amaad santahay sheekh inta sano ugu weyn amaad santahay barakallahu fiik